السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkani soo salaamayaa salaam qaaliya oo qaaligu ah oo ku soo salaamayo dowladdeeda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka jarnaalka ministerada guddoomiyayaasha iyo inta halgamaysaba waxaan ku soo salaamayaa salaam kashka iyo laabta ka soo baxday oo tolnimo ah soomaalinimo ah ayaan ku soo salaamayaa islaamka. halkan waxaan u soo gudbinayaa hambaliyo iyo raganimo yaan ku soo hambaliyeynayaa ugaaskayga, jarnaalkayga, madaxweynahayaga, madaxweyne ku-xigeenkayaga iyo halganka galbeed ummadda gundhate iyo dhallinyartayada quriqaadka raganimada iyo calool adayga iyo libaaxnimada. inkastoo soomaalidu waa libaaxi east africa mise waa libaaxi africa la yidhaaho raganimadoodii muujiyey ayaan hambalyo u soo dirayaa. hambalyaan nii soo dirayaa waxa weeyaan 6 sinadood baan ku jirnay dulum iyo oohin baan 6 sinadood ku jirnay. ayaan quraatay ayaa la dilay 380 oday 90 jira uu ilaahayba iska daayey ayaa qoorta laga gooyey. in yaroo imika la dhalay oo adduunyada imika u soo baxay baa qoorta laga gooyey. hablo cawradada ayaa naasaha laga guray. 380 ayaa midi lagu dilay. dembigaa intaa la eega weyn raggii galay way garanayaane ilaahay baana ku leh jawaabtoodiina way heleen. maanta hambalyaan u soo dirayaa jarnaalka foodcadde iyo koloneladiisa iyo naftoodu huraanka dhallinyartayada soomaaliyeed ee maanta raganimadooda muujisay ee 6 sinadood oohintii iyo balanbalamkii iyo haraadkii iyo gaajadii maanta dhulkii ku heesaysa ayaan hambalyo u soo dirayaa. haddana ugu celinayaa ogaaska fadhi diiday ee jiif diiday ee kaynta u galay ee ummadda kaynta u galay ee wax la qabay ee muujiyey ogaasnimadiisana muujiyey. hambalyaan ku leehay. hambalyadaa baan kuu soo diraya. inta aan doonaynay waxaasunbay ahayd. ayaa ka mas-uula markaan lahaa wataa mas-uulnimadii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii mas-uulnimadoodii way caddeeyeen. annakaa ka mas-uulayay yidhaaheen. ayaa ka mas-uula markaan idhi anaa ka mas-uula baa tidhi ogaaso. mas-uulnimadaadii waad caddaysay. allaha kuu gargaaro oo intii naga shahiidana allaha u naxariisto. waxa weeyaan dembigii laga galay ummadda masaakiinta ee qoorta gacanta lagu gowracay
إلهي وكود رياي لكن ما إلوب إلهي دنبي أنا ما إلوبه إن بدن بان نبت مجرتا ليدي وارعفر إن نبت قاتا ليدي نبر مجرتا ليدي عفر هواوي حن بالقليين هواوي حن بالقليون نيكا أوغوه الرئيين إلا باتنكي لبيئة طبانكي إنجريسكا ugu sheegay cafar inay ahayd dee nin wuxuu ahaa Soomaali ayuu ahaa oo waliba nin ciisu ahaa oo waliba wuxuu ahaa nin galbeedi ayuu ahaa oo waliba wuxuu ahaa nin aabihii magac lahaa buu ahaa Baxamuud maxay in buux sugay lahdil waa ninka 2012 Ingiriiska ku dhawaaqay yiri dhulka aad ciisow degan tahay dhulkaas aad degan tahay cafar baa iska leh waa ninka hawaawiga ugu foolxun cafarta geliye TPLFT jabhadii Tigreegana waxay gelisay hawaawi bay gelisay adduunyada ummad iska degan uu lama yidhaaho adigu dhulkan ma deganeen ummad iska degan ولما أورن دكان أديكم مدقن المرحين وح أي كذا خدعون إثيوبيا باي كذا عدي إن اللي راه أديكم دكان مدقنين أديكم دكان مدقنين أديكم دكان مدقنين إثيوبيا باي كذا عدي لكن إلهي معبود كون دول جوايو إسقى أركيا دولم كسيدو أصعده دولم كسيدو أصعده إلهي با أمدا كلنا رنتو دسينيا daacaddoodana siinaya afartu waxay ku hawaawiday hawaawi cirkiga dhulka jirin oo wali la maqlin waxa weeyaan ajaladihi buu Hussein Lahdil ee Ingiriiska 2012 uu ka yiri conference ka yiri conference waliba Soomaalidu ugu yeedhay ka yiri Sayla Djibouti galbeed dhulkaas oo dhan ba cafar baa lahaydo ciise ma badeganin waxa cajiiba waxa weeyaan buu Hussein meesha ay ciisuhu iyo meesha ay Soomaalidu deganaayeen inna shimbira ma ahayn oo cirka may fadhiini isaga markaa noo sheegi lahaa waxa weeyaan shirkii ay shacana wuxuu doonay inuu khudbad ka jeediyo yiraaho ciise oo shirkan aad u fadhidiin waaba khalade أي شاعر معي هيدي إن مسيلة يدور كان أشياء دي عفر بس كده جريدين ويراه أيوب كنت الجري إلهي بنوجر قارون نجي ويعي لكن وحويان هواوي جاحون عفرته جار وناجة أمانك نرشة عفرته وي اللودي ولا اللي مدي يومارك تجاركي intaasoo dumara oo Soomaaliya ay cafartu qabtaa rakan cafarta Umar Ali leeyahay Ali Umar leeyahay iyo ninkan Haykar leeyahay iyo naagtan Zaynaba Ali leeyahay gabigoogu Soomaali baa dhashay mise Soomaali baa qabta af Soomaali baa kurisay halkan waxa weeyaan cafartu inay Soomaalida abaal u yeesho أي همبليا أقدرتو أي مهد ويديستو أي عفرت أي صومالي ده أي لنولات مو يعني هذا واحد أي صومالي كوسا ما يستطيع دي عفرتو يخا إركب يكوك صومالي دو الله ونحرسته زياد بري وانيكي عفرت وحبري صومالي أي كابو بحيي وحو بري أفكا عفرت السيدة اللوقر wuxuu baray dirirtu baray oo jabhad uu sameeyay aqalki Muqdisho lagu hayay noloshooda la hayay gacanta lagu hayay ummad waxa laga soo qaaday ku jirta ummadda Soomaalida abaalkeegii wuxuu noqday abaalkii Soomaalidu wuxuu noqday inay Soomaalidii hadda tooleeyahin dhulkani Soomaali ma jirtaba inay yiraahin ayay gaadheen laakiin waa hawaawi buu Hussein uu ku beeray iyo Tigreegi uu ku beeray weeyaan labadii hawaawi ugu xuna ee Tigreegu
iyo buu xuseen uu ku beeray weeyaan laakiin way ku baaba'een hambalyaan leeyahay xoogga Soomaaliyeed ee maanta galbeed joogta xoogga Soomaaliyeed ee Jarnaal Foodcadda uu wato waxaan leeyahay hambalyo waxa weeyaan ummadii way dhimataa laakiin dhul ma dhinto dhulna ma guuro wali taaka ay Soomaalidee lahay wali Soomaali lagama qaadane haddii nin kastaba uu isku dayayo dhul Soomaaliyeed baan qaadanayaa hadduu leeyahay been buu isku sheegay dhul Soomaaliyeed baan qaadanayaa hadduu leeyahay been buu isku sheegay walaalnimadu waxay ka macaan tahay jaarnimadu waxay ka fiican tahay Soomaali waxa weeyaan nin kaste ayaa la noolaan kara Soomaali waxa weeyaan adduunyada nin kasta la noolaan karaya meel kastana way ku noolaan karaan meel kastana wax way ka noqon karaan Soomaali waxa weeyaan albaabadeedu iyo daaqadaheedu way furan yihiin wali Soomaali ummadna may gumaadin ummadna xoog kuma dayin ummadna ma boobin ummadna ma jiirin ummadda way soo dhaweysaayo dhulka Soomaalida sida loogu nool yahay ee loogu raaxaysanayo adduunyada meel kale laguma raaxaysto waa dhul Soomaaliyeed waxa aad la degaysay waxba lagu oranaynin haddaad taadhasa tahay oo taadhasa tahay haddaad tahay Maxamed baa tahay Burhaan haddaa la odhaa Burhaan baa tahay Xumed haddaa tahay Xumed baa tahay ninna lama afragaadiyay Soomaalidu waxa weeyaan aqalka adduunyada nin kaste gaal iyo islaam carab iyo madowba ay Soomaali la noolaan kasto nin Soomaali ka ashkatoonay oo dhul Soomaali ma noolaan kara yiri adduunyada lama hayo Soomaali waxa weeyaan ilaahay baa siiyay nicmadna siiyay ilaahay baa siiyay raganimana siiyay ninna ma gumaadaan ninna ma eriyaan walaa gaal walaa islaam aawa haddaad timaadi waa iska noolaan magaaladaas kalgal reerkaa la noolaanaysa halkani waxaan ku celinayaa waxaan leeyahay afartu waxaan u sheegayaa inay ku noqoto meesha ay ka timiday hadday ku noqon weydo iyadaa markaa mas-uul ka ah waxa dhaca afar ammaan hadday ku noqon weydo ay ammaan dooni weydo codkaasi waxa weeyaan waan ogahay inaan la gaari doono ay isgaarsiin doonaan waa la socda Zaynab Ali way qaadan doontaa Ali Umar uu qaadan doonaa Haykar Huure uu qaadan doonaa waxa weeyaan waxaan ii sheegay cafaray si degdeg ah haddaad ugu noqon weydiin meesha aad ka timaadeen ood qoryaha dhulka dhigi weydiin innikaa ka mas-uula inta kale innikaa ka mas-uula inninka ka ayaa inta kale ka mas-uula walaalnimadii jaarnimadii islaamnimadii iyo gacalnimadii intaa naaga ee Soomaalida aad niga dhigtay haddii aad fahmi weydeen oo walaalnimada iyo seedinimada iyo abtinimada iyo maxay hayday gacalnimada iyo tolnimada iyo wala noolaashada sidaa Jabuuti nool yahay had iyo goor waxaan iigu celiyaa war wakaa Jabuuti ba sidaa loo nool yahay afaray dhulkaagii ku laaman Soomaalidana dhulkaaga u daa walaalnimada iyo jaarka iyo diin islaamkana ha lagu noolaado ayaan boqol goor baan idhi in badan baan ii sheegay waxaad tidhaaheen ininka oo gogolad noo soo xidho baan ila hadli karaynaa waxa weeyaan maanta waxaan iigu celinayaa haddii aad degdeg u bixi weydiin ood ku laami weydiin meesha aad ka timaadeen oo xoolaha iyaga dixda hawaash ka cabaya iyo dixda wabiga ka cabaya haddaad farafaraysaan afaray waxa weeyaan adaa og meesha aad wax ka helayso runteeday imani haddee toole waxaa loo kala bixi doonaa Soomaali iyo ka aad sheegaysiin Soomaalina waa Soomaali ciisana waa Soomaali waxa weeyaan ciisuu Soomaali haddaad tidhaaheen waxa weeyaan been baa isku sheegteen ciisana waa Soomaali Soomaaliguna waa ciise markaa
taasaan ilaah waxaan igu soo celinayaa hambalyo iga qabtada horta iyo afarta oo dhulka ku laamata hadday doonayso inay badbaadiso inta u hadhay hadday doonayso inay badbaadiso si degdega ha uga baxdo dhulka ha ku dhawaaqdo ammaan degdega ha ku dhawaaqdo calanka cad ha taagto calanka cad hadday taagi weydo dee samaara iyo gawaani iyo mille nagama badbaadayso samaara iyo gawaanina nagama badbaadayso hawaashna waad ka dhaqaaqaysiin runteeda iman doontaa waxa weeyaan dhul oo ninigaga saaro ood ka baxdiinun maaha waxa weeyaan dhulba ma haysatiin bay gaari doontaa hadalkii aad wadeen un baan inii sheegi doonaayo dhulba madahayn baan in odhan doonaa ee waxa weeyaan sidaa haddaad doonaysiin inaa badbaadiin inta niya haddaad badbaadiin dhulka si degdega uga baxa oo ammaanka qaata calanka taaga nin dambe oo soo weerara haddii weerar dambe uu dhaco oo xoolaha yaga iyo waxa yaga nolosha halkaa joogta aan raggaa adhi jirka aad weerartiin waxa weeyaan cafari samaara way ka kici doontaa samaara way ka kici doontaa taasna waa noo ballan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu